بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتشغل iyo shirkan dadka la magacaabay rag iyo dumarba hore uma wada shaqeyn isma yaqaanaan meel way ka wada duuli doonaan waxa la rabaa in iyagoo team wada shaqeeyaan marka waxay u baahan horta iyagoo isbartaan ra'ayaal badan isweydiiyaan oo iyagoo isgaranaya team ahaana si wada shaqeyn doonaan garanaya ay shaqada bilaabaan qodobka labaad wuxuu ahaa wasaaradihii waa la isu raray qaar waa la soo koobay waxaa la sameeyey hay-ado madax bannaan authority ah marka taa lafteeda in la isla fahmo oo siday u wada shaqeynayaan hay-adihii in la isweydiiyo oo hay-adda masalan la yidhaahdo waa hay authority oo madax bannaan baarlamaan baneeyay wasaaradda shaqa kuma laha maarayaheedaa leh waa line minister labada wasaaradood howlaha qaar ba iska soo galaan waa in la kala qeexa oo shirkan aad loogu lafagura nidaaminta si ay dowladdu wada shaqeyso oo aanay gabadhu murug badani gelin marka wada shaqeynayo waxa kaloo ka faa'iido yahay dadku haddii xitaa marka wada shaqeynayaan wax dhex galaan way isgaranayaan oo wadada soo shiray oo isarko wax isweydiiyo oo wada xiriir karaan laakiin haddaana isba aragba isba fahmi karaan marka shirkan inta ugu weyn maanta aynu xoogga saaraynaa waa isbarashada iyo wada shaqeynta xukuumadda iyo inay isla fahmaan siday u kala qeexqeexayn howlaha shaqo waxaa soo raacaa intan wasiirada xubno fara badan oo madax bannaan waa dhowr iyo lixdan iminka inta madaxweyne saxeexay ee ay hay-ado madax bannaan afar baarlamaan waa dastuurka ogol ilaa dhowr iyo soddon kale la shaqeyn doona oo badankooda baarlamaanku baaskareeyey oo madax banneeyey waana meelaha dhibaatada ka timaado marka gudaha laga wada shaqeynayo waxa kale oo ahaa qodobadii shirkan aynu ugu talagalnay markii la soo jeedinayey inuu golahu noqdo mashiin gaariga oo kale mashiinkiisa bistanadu shidaal la wey gubaan oo oxygen iyo waxa isku taga gaas xaraaraduna dhowr boqol bay gaadhaa centigrade bistanaduna isma taagaan kor iyo hoos bay u shaqeeyaan haddana waxaa ka soo baxa marka faraa wiilka la dhaafo xoog gaariga hore u dhaqaajiyo oo midaysan intaasoo birood oo isweydaaranaya iyo mashiinkaa gubanaya waxaa looga dan leeyahay inuu soo baxo mashiin force energy hore u dhaqaajiya dee shirarka iyo kooxda shaqaysana waa caynkaa xukuumaddu iyo golahu inuu noqdo mid markuu isagu wada joogo dab ka kaco kulul wax isweydaranaya isdhaafaan isku dhacaan meel kulul noqota laakiin marka iriddaa laga baxa waa ka soo baxo xoog dhan wada jeeda muhiimadda la rabo shirkan inuu abuuro waka inuu gudihiisana dabka kaco oo kululaado murankiisa iyo doodiisa iyo afkaartiisa markuu baxana uu mishiin qulo dhan wada socdo u noqdo intaa la isla fahmo ay xoogga u weeraraysa howlaha inoo yaalla way badan yihiin barnaamij waxaanu soo gallay olole siyaasadeed inta halka joogtaa saddex qof haddii laga rabo afar qof meelaha inta kale kaamilka waanu soo wada galay dadka waxba inuu ballan qaado ballamo waaweyn baynu qaadnay inagoo xisbiga kulmiye ah barnaamij dhextiira oo qurux badan oo dadku aamineen baynu samayn waxaan rabnaa in barnaamijkii la furfuro lagu koobnaaye oo 23 wasaaradood mid waliba qorshaheedii la baxdo oo ay u samayso sanad 6 bilood leh 3 bilood leh qorshaha ka dheegan barnaamijka xisbiga iyo NDP2 isagana ay dowladda xukuumaddu samaysay wasiirkii waxa laga rabaa inaanu noqonin isagu qof routine dheeri u shaqeeyo qof murmayaane markuu hagaayo wasaaraddii inuu isagu qorshaha sameeyo dabeetana hawshii hawl maalmeedka u dhaafo ku xigaan ama baarka directorkii iyo dadkii kala shaqeynaya iyaguna shaqeeyaan waxaa iman doonta marka halkan laga tago wasiirku isna dadka loo soo bedelay iyo dadka cusub inuu wax fahamsiiyo wax dhow socdaan oo wada shaqeeyaan waxaanu kowlaliye xeer ka yeelanaynaa aan ku wada shaqeyno dadkiina wada shaqeeya haddii waxaanu ku wada shaqeynayo waxaanu isku raacnay qof ka qaldamo maxaanu ka yeelaa waanu kowr jiraa lagu wada shaqeeya
haddaan imika halkan markaynu joogno aynu tiim nahay oo warrabo oo shaqeeyo markaynu halka baxnaa idhaahdo anigu waan soo jeediye waa la idiiyey oo weli wasiirkii loo arkaayo inuu deegaan korisfasi ka soo jeedo uu keena dabada sii geliyo dee meel tegi mayno waan iska hor imanayna marka waan idhaha kowd warniyo iska ilow deegaankaad ka timid marka la eegayo rijinado dhan wax ka boqoto dowladdu waa run laakiin rijinka aad ka timid iyo dadka amtalsi waa inaan u jiidano inuu national wixii kale xagga u jiido waxaa laga rabaa ninka siyaasiga inuu soo jiido isagoo kala soosigiisa ama inad siyaasadda meeshii uu ka jooday inuu qaranka keena ayaa dee laga rabaa waana ta in badan dowladaha afrikaanku aanay samaynin ay dib u kala gurtaan ay deetana kolka dambe iyaga dib u kala yaacaan qodobadaynu qaadanna waa kuwa waxaynu u baahannahay 120 cisho hore maxaynu qaban karnaa ee runa guddidii qabanqaabadu qorshay soo samaysay waa kan qaar kaloo soo inoo way jiraan waanu idiin keeni idina way ku dari maxay noo suurtagal ah inuu qaadno waa korayso dhibaatooyinka muhiimka ah ee hor yaalla saddex maan arkaano mid waa nabadgelyada marka la furfuro waa mid dibadda ah iyo mid gudaha ah ta dibadda waa la yaqaanaa ciidanka qaranka qaabilsan sahanka ama qolada wardoonka qaabilsan meel fog hadday tahay dadka wax kharbuda iyo hadday tahay malaha cadow lagu soo duulaba iyaga u diyaar ta gudaha ayaa maanta culays badan koo dadkii oo qaybsan oo reernimadii ka xoog weyn tahay qarannimadii laakiin idinku waxay ilaahay ku mahadisaa intayna halkan fadhida ninna reer qulima soo dooran aniga reer ma soo dooran qaranka oo dhan baa doortay labadii mucaarado way igu raaceen markaa reer sheegan karo dawladda jiidi karaa ma jiro qaar codii badiyay way jiraan laakiin dee qaranka oo dhan baa doortay iyagu meel waxba geeyaan wasiirada halkan fadhiyana ninna odayaal iyo caaqil ma keenin mana ogeyn cid imanaysa codkii ummadda lay dhiibe awooddiisii ay maraykanka ku yeedhay marka waa kana si beentiida nin olola soo galo laba oday iyo afar oday iyo caaqil iyo reer hadhow u marna sheeganayaan waatan hebelkaa reebaan kula dardo aan kula orodayna ma lihidin mar hadday saa tahay qabyaaladii waxay noqotay awoodda qura duminaysaa qarannimadii si cilmiyana oo bolos si dheer rabaan uga fikira laba faqrigii iyo shaqalaantu waxay keentay jeel dhalinyaro ma lihin waxaa loo geenayaa abujeerinkii 20 goor wax dilayay isagoo sidii ka adagoo dhagaxo nolol badan kale buu soo baxaya waana taymkan haysata inagana xoogeen iyo resource-kan wuxuu ku dhamaanayaa booliska oo lixda magaalo waaweyn habeen walba dagaal ku jira boolisku marka ciidan habeen walba magaalo dagaal ku jira intee u soconaya taalkeena waa ognahay ka dhaawacmaya gaariga burburaya khasaaraha ku baxaya maxkamadihii way xidhayaan meel ay dhalinyarada ku hayaan ma hayaan waxa loo geenayaa abujeerinkii casharkii hore dibadda ku yaqaanay ka weyn buu la soo baxaya xabsiyadu way buuxaan xabsiyaduna waxay la mid yihiin wixii la oran jiray black of Calcutta way ka yihiin halkii loogu talagalay in shaqo jiifaan boqol baa ku jira hadda aragtaan oo soo eegtaan yaani waxa oranaysaa abaaruhu waxay ku dhacayaan waa maxaabiis dib ka gashay waa mashkalad nabadgelyada khatar ku ah oo u baahan in si qarannimo looga howlgalo hadday waliba qolada maaragtay culimada awqaafta iyo diinta hawshaasi waxay ku leedahay mas'uuliyad weyn idinka in badan leh waayo saddexda xaafado masaajidada ka badan aqalada caadiga haymka dee masaajidada waa in carruurta laga jeeyaan lacagtina waa dad haya sheekh wasaaraddu baa hawl yaraa daakhiliyada ka xoog weyn marka way jahayn karayaan jaarnimay abuuri karayaan mashkaladda darsi karayaan dabeeta waxaa loo leeyahay maxaynu xaggeena arrintaa nabadgelyada guduhu waa khatar aad iyo aad u weyn oo aynaan dhaysan karin oo inagu soo fidaysa oo talada ay noqoto boliisku ha qabto ha xidho waa ta gudaha dadka madaxda ah madaxweynaha ka bilow ilaa ninka xafiisar haya waxaynu u nugul lahay sharciga jabintiisa waxaynu u nugul lahay wasiir walba ka daakhiliga ha u badnaadee markuu dambi dhaco
naf bini'aadmiga ugu wax la gooyo markuu qofku nin dilo ee uu soo qabto daakhiliga waxaa dul imanaya in allii inta deegaanka ka soo jeeda ee la ixtiraami karo suldaankaa imanaya taajirkaa imanaya sarkaalkaa imanaya wasiirkiisa kale kollegiisaa imanaya akaabiridka ma jira waxaa maahay arrintaa reeri baa ka heshiinaya ee waa la dhammaynaya inaga fudayda markuu inta kale dhan iska xajiyo waxaanu dhaafi karaynin kareerka wasiirka kaabiridka la jira taliyaha saldhigga iyo ninka ciidanka xukuumadda booliiska taa tulag ma haysato markuu qofkii dambiilaha qabto weerar baa lagu qaaday qaranka o dhan lama sugaayo xataa dembigaa in intiisa laga fuliyo waxyaalaha ugu culculus waxa ka mid ah ee u baahan inaynu xoogga saaro oo aan la fudaysan waa kala dambeynta markuu qofka dembiga xeerka uu jabiye aan la qaban karo waxaa hawl weyna kufsiga waxaa la yaabla kufsigu wuxuu inoogu kordhay si boqolkiiba 400 labaatanka sano u dambeeyey intii aan dalka joogay macquul ma aha inaynu intii aan dalka joognay inagu aanu maamulaynay inuu kufsigu ka bato sanadihii hore oo weliba uu noqdo wax la dhagaysan karo oo aan la yaabin oo aad maqlayso 10 inan oo xaafadda inanta isgaranayaan oo jaarkooda ah oo inay hebel isu garanayaan islaan inan midnaba aan dhaafina inay 10 waroor ku soo oo ciqaabtooda noqoto oo dalba ka heshiiyey xataa waxa dhimatay dhaqankii qabariga ahaa ninka inan faraxmeeya waa la diri jiray reerka ka baqan jiray inanta reerkooda ka baqan jiray xataa kiiba jawaab fududaaday markii magaalooyinka leeyihiin waa hawlaha qodobada ugu waaweyn ee dowladaha inoo horyaala waxaasoo dhanna waxaa keenay badankooda waa faqri wasaaradda maaliyaddana cashuur labada kastama inagu wadi kari mayso berberiya wajaale qaran inoo wadi maaya hawsha inoo taala wax soo saar baynu u baahana miisaaniyaddana waxa ugu yar wax la siiyaa waa warshada kuwa wax soo saaraya wasaaradaha soo saaraya ugu yar haddii la isu wada geeyo TV-ga qarankaa ka badan baa laga yaabaa lacagta ku baxda markaa beerahii iyo xoolihii iyo kalluunna miisaaniyad ma siino oo wax kama soo saarno propagandadii iyo raadiyoga TV-ga Yurub buu gaadhaa iyo Maraykan buu gaadhaa dee maxaanu lacag TV-ga galnaa waxaanu gaarsiinaa ma hayne haddayna waxba shaqaynin quruxba ma hayne maxaanu TV-ga marihii TV-ga iyo hala daaya idaacadda ma yaraynayo wasiirka iyo waxaan aqaanayn wasiirka cusbaa kuma soo socdo laakiin waxay u baahan tahay shirkan isku weydiin war horta waxbaan soo saaraa mise waxbaan fiirina marka dhibaatooyinkan hor yaalla ma yara waxa kamid ah ku darstaan qorshaha aan ka wadaysaan bisha March 2019 waxa laga rabaa doorashadii baarlamaanka ee dowladda hoose waa san waxa soo hal wariyaal doorashadii madaxweynuhu aynu la raagnay sumcad weyn oo ictiraafka intii laga doonayay in badan inoo dhaweysa ayay qaad hadday taasi inagu dahadona haddana dhaa kuristimo kale aanu gallo waa dib u dhac kale ta kale xaqba ma aha wakiiladu wax fadhaan 12 guurtuna waxay fadhidaa 20 qoladan dowladaha hoosena way sii durkayaan dee doorashadii inuu ku qabanaa ayaa laga doonaya sanad marka waxa qodob naga saari karaya ilaahayna ha u gargaaray wasiirka batroolka iyo macdintu hadduu intaa wax naga soo gaarsiiyo ya marka dee inaynu practical noqono oo shirarka caynkan oo kale waxyaalaha inoogu muhiimsan aynu dusha kasii wada hayno oo in wax isla eegeegno oo waxa laynaga sugaayey iyo waxaan hor yaallaa aynu garanaa waan kusoo koobayaa dadka aniga wararkaygu hayaa waxa weeye marka expectation marka rajadu aad u weetay qofka waxay dadka gelisay inaynu 3 bilood hore 4 bilood hore dee wax weyn aan bedelo arigu waa xidhay kamana hadalo waxmudaan hoos u dhigo waxmudaan labadii intii yarada aynu kasoo ku caraarina soo ururayso chance ka badan baan hor yaalla anigu waan coordinate gareeyaa oo ragga laga soo yeeray xillaan ciidankan haystaana waa idinka commandos aan leeyahay waxa soo burburiyaan waa idinka marka waxaan isku dardaarnaa aniga idinku waxa aynu hor yaalla inaynu aad nooga fikirro maxaa dhabaynu qaban karnaa xaqiiqo istaagno
propagandada iska yarayno maxaan ku rahdaa kolba taagteena talaabsana inagoo daacadda ilaahay la kaashanayna midnimadana ku shaqayno mucaarad baadan caya jiraad baadan cayna aynaan dhagu dhigano wixii dhabunbaa runtunbaa socotee la ogaado mucaarad iyagana xaqoodanu siinayna mucaaradaynu ogol lahay wada shaqaynta qarankeenu ka ogol lahay kaashgoodaynu baahana inay dhaliisheena sheegaan dalkana wada dhisano spaceka inaynu dhaliila aanu siino iyagana aynu ku soo dabaalle xadaa war waxma wada qabana iyaynaan weel marayana isku dirinaya intaynu dhibaatayna horta ayaa badane ma wada shaqeyna waan iyagana ka soconaa dee intaan kusoo koobo intaasoo wada ogeydeen un baan ku celiyey waxaad og tahay makuu sheegaa un baan ku celiyey waayo waa intay dhibaysa intaan ka doonaya waa kaa kaftanka halka ka soo baxay waxaa la yidhi qoladii wasiirada ahayd qoladii dhalinyarada waxbaa la jirtay xalay kaftanka laga keenaya waxa weeyaan kaftan wanaagsan bay kasoo waxay idhahdeen meesha askar baa qabsatay dadka waa loo wada xiiraya waxa laga dhigaa askar marka wasiiradii baa lagu horreysay xalna lagu xirkay way iska wanaagsan tahay ya haddii madaxa la socodaya haddii objac la iscaalsanayaba wixii la shaqa ku soconaysa la isugu tago waxa ugu horeeya kala dambeynta ismaqalka marka hadday ka bilaabato waxay tahay wax dhacay ma aha marka insha Allah waxaan codsanayaa nin oo sii xiran maanta Brito saan la oranin hadba xiran baaya saan la oranin marka wala soo xiran qolada bidaarteena koofiyadaha qaatay in ka aad iyo aad u wanaagsan. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi.